waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaan khayrta ku xiran channelkeena Expert Option Somali. Insha Allah caawa website-kan oo aan soo dhigay kowdii bisha kana soo hadlay part 2giisana aan soo dhigay muddo isbuuca kadib. Waxaan soo dhigay kowdii 8 bisha soo dhigay website-kan waxaan ka hadlay kowdii bisha waxaana soo dhigay 8 bisha. Okay, part 2giisa caawana insha Allah waxaan dhigi doonaa part 3giisa iyo resultigiisa oo wada socda. insha Allah part 3ga caawa wuxuu ku dhisan yahay resultiga website-kan muddada aynu isticmaalanay ee ah 21 casho. Okay, markaan leeyahay muddo waxaan isticmaalanay 21 casho website-kan sida aad arkaysaan halkan waxaa ku qoran kowdii bisha. Publisher-keena u horeeyay oo aan lacag publish gareyno waa kowdii bisha ilaa kowdii bisha iyo ilaa iyo 21kii bisha waxaan publish gareynaynay waxa loo yaqaano oo aan lacag kala baxayno website-kan. Okay, website-kan sida arkaysaan caawa isu geeyay markaan isu geeyay lacagta aynu ka saarnay website-kan waxay noqotay 100 iyo ii sheegay $29 21 casho ayaan waxaanu faa'iidnay lacag dhan waxaanu faa'iidnay lacag dhan $129. lacagta aynu deposit gareynay oo anigu aan jeebkayga ka bixiyayna waxay ahayd intaa dambe ayaan jeebkayga anu ka bixiyay. waxaan jeebkayga ka bixiyay $12 iyo 0.5 baan jeebkayga ka bixiyay. intii kale waan ku celcelinayay oo isaga maartay baan dib ugu yara celinayay publish baan sameynayay oo dib baan isaga xogaa aan faa'iidan dib ugu yara celinayay xogaa marba aan faa'iidan dib ugu yara celinayay. saa darteed waxaan gaarsiiyay heer aan kala baxo $129 oo faa'iida oo ii dhashay $12 iyo 0.5 aan kala dhaliyay. Okay, website-kan saa wada arkaysan waa maalgelin kaagama baahna inaan meel ta taabadid kaagama baahna inaad kalkashid kaliya aan website-kan san habeenkii ii sheegay waxa ku dhufanaysaa your cabinet horta mid kale aan tusaya website-kan inta aan publish gareynay wuu ku aruurinaya markasta oo lacag cusub aan publish gareysid hadaan publish idin fasiro markasta oo lacag cusub aad dib u geliso wuxuu ku sameeyaa publish buu ku sameeyaa wuxuu ku awoodayaa in uu faa'iidadii horena barteeda kuga hayo lacagta cusub aad deposit gareysayna inuu ka dhigo lacag cusub oo hadda la soo geliyay labadii lacagood inuu isku ka daro. Okay, inaga ogow $92 meeno dhigan kaliya waxaan dhiganay $12 iyo 0.5 laakiin xaggaas saad aragto waxa ku qoran publish baa ku qoran. waxaad ogaanaysaa in lacagtan la publish gareeyay $94 iyo badh. Okay, $94 iyo badh ayaa waxa inoo dhashay $129 waliba $94 waxa ku jirta waxaanu ku leenahay $12 iyo 0.5. Okay, haddaba lacagtan intaa la eg $129 sideen ku keenay miis weydiiseen. Okay, waxaan ku keenay website-kan waan soo dhigay waliba waxaan soo dhigay part 1 iyo part 2 waan soo dhigay caawa kana idin dawayan waa part 3 waana soo ogaan kartaa dad channelkeena dib u raactid ogaan kartaa resultiga website-kan aan caawa ka dhigayo casharadii hore aan ka soo dhigay ogaan kartaa waan dib u raaci kartaa. Okay, haddaan intaa aan hadalkii kaga yimaado website-kan qaabka lacagta loo dhigo waan kaga soo hadlay fiidiyoda hore aan kaga soo hadlay. website-kan labada qaab ee lacagta lagu dhigana waan ka soo hadlay. waa buyer oo caawa intii u dambeysay aan kula baxayay lacagta 0.3ga ana kula baxayay lacagta perfect money-ga. Okay, haddaan website-kan soo dhigo inta jeer aan lacag kala baxnay waxaa arkaysaa inaynu maartay ii sheegay $35 ilaa $32 ilaa ii sheegay $36 ilaa mararka qaar aynu kala baxaynay maartay lacag $40 madaxa la sii galaysa. Okay, website-kan labada qaab ee lacagta lagula baxo ima inaad buyer isticmaalisid iyo ima inaad perfect money isticmaalisid. Okay, insha Allah akhyaartii sugisay casharka buyer qaabkii loo sameeyay iyo qaabka lacagta loogu diriyay insha Allah waxaan rajeynayaa isla casharka inaan isagana aan soo gelin doono isla caawa aan berrito haddii ilaahayno. laakiin hadda casharka inuu ka hadlana waxa weeye website-kan inaan soo dhigno part 3giisa dhalinyaro badan soo weydiisay inaan u xaqiijiyo website-kan inuu real yahay oo maartay haddii ay u baahdaan ay maalgashan karaan lacagna ay ka faa'iidi karaan. haddaad website-kan u baahantaan linkigiisa waxaan soo dhigi doonaa description-ka iyo comment-ka u horeeya. insha Allah waxaan rajin doonaa xagga kala degtid inaad iska diiwaan gelin doontid waxa ugu yar ee deposit gareeya waa $1 iyo wixii ka badan. Okay, haddaan mar labaad kugu celiyo website-ka linkigiisa waxaan soo dhigi doonaa description-ka
website-ka waxa ugu yara ee la dhigtaa waa $1 iyo wixii ka badan. Okay, haddaan intaa kaga imaado iclaankaas, website-ku qaabka kan buu u shaqeynayaa. Markaad rabtid inaad lacagta la baxaydna waxaa ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay withdrawal. Hadda markiin withdrawal saa ugu dhufano, inaga hadda daily limitkiina way naga dhacay. Daily limit baa lagu siinaya waxa la yiraahdo markaad dhowr jeer lacag la baxbaxdid. website-kan anigu aad baan uga mashquulay oo dee maaragtay xilli iskama saarin, laakiin dhalinyartan u tijaabinayay. Sidaa aragtan website-kan labada qaab baa lacagta lagula baxaa, inaad bayar haystid iyo inaad Perfect Money haystid. website-kan saa arkaysaan, inagu lacagtan kala baxanaysaan idiin sheegay waxay ahayd $129. sidaan idiin sheegayna website-kan waa website real ah boqolkiiba boqol. website-ka haddaa $50 dhigatid maalintii waxaa shaqaysanaysaa $25. saacadii waxaa shaqaysanaysaa $1 iyo 6 senti. $1 iyo 6 senti. maalintii waxaa shaqaysanaysaa $25. marka insha Allah waxaan rajeynaynaa middaa fahanteen. haddii aad $1 dhigatid maalintii waa 0.5, saacadiina waa 0.02. adigu waa iska 2 senti meelaha weeye. insha Allah waxaan rajeynayaa middan inaad fahanteen. xagganaad ka calculate garaynaysaa lacagtaad u baahan tahay iyo qiimahaad ku helaysa per day-ga iyo qiimahaad ku helaysa per hour-ka. Okay, insha Allah waxaan rajeynayaa midda inaad fahanteen. website-kana meesha lacagta laga dhigtaa waxaa samaynaysaa halka ay ku qoran tahay your cabinet markaad saa ugu dhufatid. your cabinet saa ugu dhufatid waxaad ku dhufanaysaa meeshaas ay ku qoran tahay ii sheegay invest, ama base xaggan baa ku qoranaysaa make a deposit baa ku dhufanaysaa. haddii aad make a deposit saa ugu dhufatid waxa uu ku geynayaa meesha buu ku geynayaa. kadib lacagtaad gelinaysaa, kadib ama waxaad doonaysaa Perfect Money ama waxaad doonaysaa bayar. Okay, lacagtaad u baahan tahay haddaad $1 u baahan tahay iyo haddaad maaragtay ii sheegay $10 u baahan tahay iyo haddaad $12 u baahan tahay halkaasaad gelinaysaa. kadibna waxaad ku dhufanaysaa labadan mid ahaan. Okay, insha Allah waxaan rajeynayaa midda inaad fahanteen. website-kan anigu in muddaa baa ka mashquulay. maadaama haddaad in muddaa ka mashquulshid oo maaragtay in muddaa aadan maaragtay ama aadan lacag dhigin ama aadan xoogaa moogtahay lacag yaroo khidmad ilaa haddaad aragtid website-ka hal mid oo kalena waa intusaya. dhalinyaro badan oo soo weydiisay baa jirta. website-ka meeshan baa ku dhufanaysaa, meeshan ay ku qoran tahay meeshan ku dhufanaysaa your cabinet baa ku dhufanaysaa. marka your cabinet saa ku dhufatay your cabinet waxay dhigmataa your dashboard bay dhigmataa. Okay, hadda waxaa arkaysaa website-kan inuu maaragtay u soconayo minute-ka u dambeeya minute inuu soconayo 1 2 3 4 inuu soo soconayo arkaysaan. website-kan wuxuu u baahan yahay saan idiin sheegay markaad website-kan 4 jeer kala baxid lacag ama 3 jeer aad lacag xoog badan kala baxid waxaa ku soo nooleysaa oo replace ku samaysaa $1 meelahaas ii sheegay $2 $4 $5 meelaha replace ku sameey si ay minitida halkan yaalla awood u yeeshaan oo ay kugu socdaan lacagtan horena ay awood u yeelato. Okay, ani hadda lacag xaggan waxaa ku jirta lacag dhan $66. Okay, $66 markii xagga ku jirto waxaa arkaysaa marka $66 xaggan ku jirto oo aad arkaysid $66 layma ogola inaan la wada baxo because khaladka aan sameeyey waxay ahayd website-kiina waan ka mashquulay. minityada ama daily limitka aan rabo inaan la baxana waa laga yareeyay. hadda saa arkaysaan sagbada limitka aan la baxay labada meelood min 36 mooyaane inta kala dhan waa laga gaabiyay because waxaa la igu ganaaxayaa inaan website-kii aan lacag ku celin waayay income ah oo aan anigu maartay hadhow sida aniga la igu shaqeeyo oo lacagta la igu badiyo markasta lacagta aan la baxayna ay igu badato waxaa laga xayray income-kii faraha badnaa ee la siinayay si la ii ganaaxo oo la ii dareensiiyo inaan website-ka aan lacag dib ugu celiyo. saada arkaysaa 94 ka replace aan ku sameeyay markastoo aan replace sameeyo faa'iidadiina way ii badanaysay daily limitka aan la baxayna way ii badanayay. laakiin sida arkaysaan in muddo markaan ka mashquulay way ganaaxeen. waxaa arkaysaa inaan taa 0.4 la baxay markaana 0.4 la baxay markaana 0.7 markaana 0.3. waxaa arkaysaa muddo ku dhan ilaa iyo maartay waxa loo yaqaan 19 bisha 20 bisha iyo 21 bisha saddex isku xigtay way saddexda cashar waa la ganaaxay. waxaa lagu ganaaxay waxa loo yaqaano 0.5 0.4 0.7 iyo 0.3. sa arkaysaan 17 bisha oo hal maalin gudaheed waxay siiyeen gelinka horena waxay siiyeen waxa loo yaqaano ii sheegay gelinka horena waxay siiyeen waxa loo yaqaano $36 isla daqiiqada kadibna waxay siiyeen $36 kale because lacag baa ka horeysay aan ku replace gareeyay $20 oo replace ku sameeyay sida gudihiisa aan ka sameeyay baa jirtay $20 waxay ugu siiyeen min $36 oo isku celiso isku mara. Okay, insha Allah waxaan rajeynayaa midda inaad fahanteen. website-kan isaga saa idin sheegayba waxaa ku dhufanaysaa dad doonayaan maalgashiga ama investment
ama waxaa ku dhufanaysaa make deposit kadib dib baad maaragtay waxa loo yaqaano replace u samaynaysaa oo lacag u dhiganaysaa ama $1 dhigo ama $2 dhigo ama $3 dhigo website-ka hadba intaad dhigatid waa calculate garaysanaysaa intaad maalintii helaysid iyo intaad bir hour helaysid labadaba uu ku xisaabinayaa waana dhigan kartaa realna way website-kan saa idiin sheegayba horena waa uga hadlay iminkana waan ka hadlaya haddii lahaydna okay website-ka intaan kusoo gabagabeynayaa fadlan dad channelka cusubtaa subscribe like and share and comment wixii su-aal waxaa rajeynaynaa comment igu weydiin doontid wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu